al-shabaab ayaa saddexdii weerar ee ugu dambeysay waxay ka fuliyeen meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya iyo xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana ku dhintay ku dhawaad 70 qof oo shacab iyo ciidan isugu jira sidoo kale al-shabaab goobaha ay qarxiyeen laba kamid waxay ahaayeen maqaayado ay shacab ku sugnaayeen iyo bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sidoo kale dilkii ugu dambeeyay waxay ka fuliyeen degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sidoo kale ciidamada booliiska ayaa toogtay dagaalamo al-shabaab oo isku dayay in askari booliis uu ku dilo ekis xaruntii hore ee baarlamaanka oo ku dhow godka Jilcow iyo taalada daljirka Daahson dadkii weerarkaas ku dhintay waxay u badnaayeen caruur dumar iyo dad kale oo shacab ah hase yeeshee al-shabaab waxay sheegeen in ay dileen shaqaale dawladeed iyo askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya saddexdii weerar ee ugu dambeeyay waxay ka dhaceen December ka soo horjeedka tiyaatarka qaranka January maqaayada Bar Italia oo ka soo horjeeda wasaaradda batroolka ee ku dhow ekis xaruntii hore ee baarlamaanka iyo qaraxii maanta ka dhacay Bar Italia oo ka soo horjeeda Muqdisho Mall degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir sidoo kalena ku dhow xarunta dawladda hoose qaraxii maanta ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray lana dhigay ka soo horjeedka maqaayad ku taala suuq mashquul badan oo degmadaasi ku yaala waxa ku dhintay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan laba hooyo iyo caruur ay dhaleen qasaaraha qaraxan waxaa badiyay dhismo ku soo dumay goobtii ay dadka ku sugnaayeen sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa shacab badan oo isxilqaama ayaa isugu soo baxay inay samata bixiyaan dad ka soo hoos hadlaya dhismayaal soo dumay kuwaas oo badbaado dalbanayay halka هيا وقلنا قلا هل مر halkan galiye mar telefoon ba ka dhacay dib qof oo ku jira galiye ha saasale هيا هل مر هيا حاسدو بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي محمد صلاح يوسف وعماشي أنا قعنتي عن قاعد اللي حق فوضى ميدا عن دقيقة كسود الضلي لما قفض دواء عن واقع هاي ويحكي بتردك اللي لاد مشكو مشي كراني وحال الشيء يا إن ضد أبو شراء إلا يهدا والله واسح ولا الشيء لكن دقيقة اللي هاد ولا الدلو يا حاكي شراء تلفونه يصور عيان تلفون ودعي هو أنا عندي قعنتي يكون مغلي دقيقة يكون مغلي تلفون ورعني قف أنا كسب إحنا مش بسم الله مقعي وبلال محمد عيال waxaan ku sugnaa qoobta qaraxa ka dhacay markii uu qarax dhacay kadib qof iga soo horeysay malaha waxaan qasaaro indhaygu saaray laba qof oo dhaawaca iyo ugu yaraan 7 qof oo dhimasho gaariga qaraxayna waa gaari aan la aqoon wax ka haray oo jaba ma jiraan markii ilaa hadeertaan waxaan daabuleynaa qasaari oo geystay qaraxa waxaan ka soo bixinaynaa goobaha dudumay dad oo ku hoos jira dadkii goobaha ganacsiga ku jiray waxa la sheegayaa inay ku dumeen oo gudaha qaarkood ay ku jiraan qaarna la soo saaray waxaad ka meetiin dadkii oo gurmadka fidinay dad ilaa meeqa qof soo saarteen oo indhiina ku aragteen waxaan soo saaray anigu yaraan 5 qof aan soo saaray oo goobaha burburay hoostooda ka soo baxay dadkii meesha ganacsanaya kamid ah musiibadan waa musiibo qaran waa markii loo eego dilalkii iyo weeraradii ugu dambeeyay ee al-shabaab ee ka dhacay magaalada Muqdisho ma la oran karaa waxay ku meereysanayaan difaacyada ugu soo horeeya ee madaxtooyada Soomaaliya iyo xarunta maamulka gobolka Banaadir sida ay dad badan qabaan su'aashaasi waxa weydiiyay Kornel Cabdi Aadan oo ka tirsan saraakiishii hore ee militariga Soomaaliya asaas way waxa way dhacdooyinka dhacay wadan hadda armaas way madaxtooyadii maaragtay qatar ku jirta magarat والله ولا شقين العوي هذا وانا ولا شقينين بدوياش ولا شقينين واحد مارتي دي مارتي ولا شقينين جري او واحد لا تركوبيا اما لا دبصادو اما لا حسابتمين اي جري waxyaabo kala imaanay magaalada qarxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu qarxyadii kale uga bedelnaa ninka gaariga qarxa waday ee ku baakimay maqaayada horteeda waxa dareemay shacabka koor intuusan qarxa dhicin su'aalo ay hoos iska weydiiyeen kadib waxa uu suurta gashay dhowr qof oo kamid ah dadkii maqaayada ku sugnaa inay u yeeraan ciidamada booliiska Soomaaliya laakiin nasiib darro koor intuu aysan ciidamadu soo gaarin goobtaas ayuu ninkii baxsaday qarxiina dhacay dad shacab ah ayaa ka daba cararay ninka uma aysan suurta gelin inay gacanta ku soo dhigaan Muqdisho qaraxyada ka dhacaya waxa ugu badan ee ku dhinta waa shacab sidoo kale dilalka ugu badan waxa loo geystaa dad shacab oo ku nool magaalada Muqdisho ma muuqato rajo dhow oo lagu dhameyn karo dhibaatada mahadhada ku reebtay shacabka Soomaaliyeed inkastoo ay wadaan ciidamada Soomaaliya dadaalo wax lagu qabanayo dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho